Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galab hordhici ah oo qorraxdu ay dhici rabto ayaa waxa aan joogay meel duur ah. Waxa isla markaas aan sugayay ugaar. Horta anigu waxaan ka ganacsadaa sagaarada. Waxa aan rabay sagaarada haddii aan dilo inaan ka ganacsado. Nolol maalmeedkii ayaan saas ku raadsan jiray. Isla markii anigoo sagaaradii sugaya ayay qorraxdii ay dhacday. Waxa ay noqotay meel madow oo mugdi ah oo habeen ah. Isla markiina meesha ayaan taagnay. Waxa aan sugayay sagaaradii. Saa u sugayay oo u taagnay. Muddo ayaa waxaan sugayay ku dhawaad 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo. Waa yaabay waxa aan arkay wax dhaqdhaqaaqayo. Waan fiirshay. Mar labaad ayaan ku sii celiyay. Waxaan arkay nin wax jiidayo. Wajiidana u degan. Dhar madowna wato. Wuxuu jiido ayaa fahmi waayay. Waa wax jawaan ku jiro. Talo maxay yihiin? Waa yaabay. Maxay noqon karaan? Aad ayaa u naxay. Ma qofaa? Ma wax kala? Waan naxay. Waan ku sii celiyay. Waa isla asigii. Waxa uu istaagay. Waxa uu maleeyahay inuu aragay. Hal mar ayuu u soo fiirshay. Naxtin darteed ayaa hoos u fadhiistay hal mar si degdeg ah. Waan naxay. Waan fikiray. Ma ku aragay? Mas'uul kuma arkin. Waa yaabay. Maxaa sameysaa? Mas'uul walaxa ku dhiman. Ma istaagtaa? Ma joogtaa? Waxaan sameeyo ayaan garan waayay. Waxaas dhahay talo waa ku aragay kaas. Ma asaad dishaa? Mase asiga ku dili doono. Anigu ma jeclayn. Qoro waa haysta run ahantii. Laakiin ma jeclayn inaan wax dilo. Anna ma jeclayn inaan la dilo. Waxa aan rabay inaan sagaarada aan dilo bis. Laakiin inaan qof bilaadan ah inaan dilo ma jeclayn. Laakiin waxaan sameeyo ayaan garan waayay. Isla markii waxaan maqlay qof wax u eg oo meesha soo fuulay. Waan argagaxay. Talo maxaa sameysaa? Maanta weligaa adoon wax qof aan dilin. Ma maanta dili doontaa? Waxaas dhahay naftaada dabad baadisid wax baad dili kartaa. Qorga ayaan diyaarsaday. Isla markiina wax aan shanqar ah waan maqli waayay. Waan yaabay. Xaguu qabayay. Marabtii u saaran yahay. Muu degtay. Wax aan sameeyo ayaan garan waayay. Isla markii waxa aan damcay inaan istaago aan eego hoos. Isla markiina hal xabo maysi joogay meesha. Waxa aan rabay inaan hoos u degto. Isla markiina waan degtay si degdeg ah. Waxaan tooshka ayaan daartay. Waxa aan rabay inaan si degdeg ah aan xaafadda u gaaro. Waan cararay. Waana habeen madow. Ku dhawaad waa 3 daqiiqo 3 saacadood 3 saac iyo 2 saac oo habeenimo. Meeshu waa mugdi. Waxaan dareemay inaan la soo daba ordayo. Waan yaabay. Waa ku jeestay. Waan iftiimiyay. Ninka ayaa isoo daba cararaya. Qorgii ayaa cabaystay. Waan ku riday hal xabaan ku riday. Waa iska reebay. Wuu dhaawacay. Wuu qeyrshay. Wuu cawaaday. Anigu waan cararay. Xaggii waxaan u cararay gurigeygii. Dhexda ayaan ka xirtay. Meeshaydii ayaan ku jiray. Waxa aan wacay oo sugayay booliska. Booliska halkay ka imaanayeen. Rabtayda ayaan ku jiray. Waan cabsaday. Rabtayda intaan ku jirayna waan fikirayay. Waxaas dhahay talo ma dishay. Hadday imideen waxa aan tusay. Rabtii aan xabada ku dhuftay. Meeshii la fiiriyay waxa yaallo dhiig bis. Waa la yaabay. Aniga laakiin waan farxay. Dhiigga ayaa la raacay. Waa la daba kacay. Waxaa loo tagay ninkii oo meel looga ku dhumanayo. Waa farxay. Laakiin waxa aan la sheegay ninkaas inuu soo dilay wiil jeenes ah oo aad u yar oo ganacsada ahay. Aniga waan farxay. Waxaan ku farxana wuxuu ahay in aan qof bilaadan ah aan dilin. Waxay ahayd farxadii ugu weyneed. Assalaamu calaykum.